بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وقت كوبان إن شاء الله تعالى بنسكو ديدونا إن نهضله موضوع كصابسن التزكية في اللغة العربية كلمة التزكية لما معناه في عربي قصة أرورتاه أي علماء الشيغان معنى الزيادة والنماء هي معنى الطهارة بين هذا شيء إنه طاهر نغضه أو حماه هي وحاصل لقريبه هي إنه زيادة يكون عضو قره أما barakoobo haddaynu si kale u tilmaamno halka kan culamaa'i suluuk waxay uga dan leeyihiin inta ugu badan leh waa nafta bini aadamka oo laga tahiro camaa yashuubuha wixii fool xumaynayay qofka bini aadamkaa oo wixii naqaa'isa ama hoos u dhigayay ama liidayay ama fool xumaynayay ama waxyeelayay in laga maydho oo iska tahiro iyo inuu xagga khayrka uu u koro oo ziyaado uu wado istiqaamada iyo toosnaantiisu ay korto ilaahay uu ka gaaraya bay yidhaahdaan darajatul ixsaan sidaa awgeed culamaa'i suluuk markay masaladan sharxayaan waxay ku tilmaamaan laba eray oo kooban waxay dhahdaan taskiyadu waxay samaysaa wax loo yaqaano altakhliya wataxliya takhliyadu waa si aynu soo sheegnay nafta oo waxyaabaha xunxun laga dhowro ama laga nadiifiyo oo waxyaabaha jira nafta bini aadamkaa hadday u weecato shar aada u badana sida xaasidnimada riyaaga iyo istuska kibirka iyo isla weynida adduunya jacaylka iyo wixii la noocee radaa'il shareecada ay ku tilmaamtay cagsigeeduna waxa weeyaan inuu qofku isku qurxiyo oo ku labisto libaasi taqwa oo ah wixii ilaahay raalli ahaanshiyihiisa keenayay ama wixii fiicnaysiinayay dhaqanka isaga iyo alle u dhaxeeya iyo dhaqanka isaga iyo aadanaha u dhaxeeya eraygan waxa ku macno dhow eraygan la yidhaahdo atarbiya culamada badh isku macnay ka dhigaan tarbiyadu waxay yidhaahdaan waa nafto kamaalkeeda la gaadhsiiyo halka ay ugu sarraysa laakiin fii nadari waxaan u malaynaya inay kala macno ballaadhan yihiin waayo tarbiyada waxyaaba aan soo gelin taskiyadaa soo gala maalan التربية العقلية والتربية الجسدية وكذا لكن تسكيده انت بدن ووح نفطي النقل كيدي الروح دي أخلاقيات كيدا كوكوبا علماء دبر وحي هذا التطهير أو التهذيب أي الله معناه لكن وحلق يابا إن يكون كمعنى قابين وهي التطهير هو حق الدنس كي نجاسي وحا حنون لقم يدو laakiin dhinaciina maaga iyo koritaanku kuma jiro tahdiibkuna waa la mid tanqiya mima yuciib bay yidhaahdaan waa shaygoo laga safeeya wixii caabeynayay soo duuduub oo eraya kan waxay culamaa'i nafsi markay ka warramayaan ay ku tilmaamaan ama culamaa'i suluuk baan u jeedaa wuxuu cagsi u yahay bay yidhahdaan atadsiya tadsiyadu waa idkhaalu shayi fi shay أو تحت الشيء شيء هذا حقه سكك جلسه أي يمسكه على هون لم يدسه في التراب إلى المامي مركي لقوا الرمي دو مركي أي حبل نولولين شرين نعيد كأس بالوت المامي تتسيدنا ونفطه أو وحي حقيري أما الليدي أما حمه هذا موجيني أد كل قنصيصه haddaba eraygan haddaynu intaa ku soo dhaafno macnihiisa guud ee la tilmaamayo si aynu u fahmno waxaynu u soconno dhan taskiyadu waa laba nooc bay idhaahdaan
midii waa nooc fitriya waa abuurka ilaahay bila aadamka ku abuuray walaqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim siiba inta uu caruurta yahay ee aanu wacwaacadka baranin oo nebi muuse markuu khidir la hadlayay waa kii ku tilmaamayay aqatalta nafsan zakiya bigayri nafs waxaad dishay naf zakiya ah ay musakaata naf daahira naqaale aan dembi loo qorin ilaahay taqaano maskiinada ama malagu markuu maryam la hadlayay waa kii ku lahaa inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki gulaaman zakiya taa ma hataynu inagu u soconnaa taynu u soconnaa waxa weeyaan ataskiya almuktasaba waa taskiyada qofku uu shaqaysto ama la kasbado oo ilaahay qur-aanku leey waman tazakaa fainamaa yatazakaa linafsih wa ila allahi almasiir fi suurati faatir waman tazakaa fainamaa yatazakaa linafsih ninkii isطahira ee khayrka isku barbaariya ee naftiisa rabeeya fainamaa yatazakaa linafsih baa ilaahay leeyahy sideedaba waxay dhahdaan cilmigu waa laba jahad cilmi nadariya ama si kale haddaanu idhaahno information ah ama macluumaad ah ama ogaal ah inaad wax garatid wax ogaatid iyo aqoon dadka lagu tababaro oo u baahan farsamo iyo xeelad iyo tababar iyo training u baahan iyo tadriib taskiyadu bay yidhahdaan waa baabka labaad waa baabkan fanka lagu tilmaamo fi luga alcarabiya alcilmu walfanni bay yidhahdaan fanku maaha kan heesaa kama warramaya ee soomaaladu fanka u taqaano waa alfanni alcarabi luga alcarabiya waa fanka loo yaqaano marka waa qofka bini aadamka oo naftiisa la tacaala sidii ay u qumanaan lahayd inta badanna kama maarmo qofku inuu cid rabayso helo haddaba arrintani inay muhim tahay waxaa tilmaamaya qur-aanka meel qura ayay kaga jirtaa ilaahay oo 11 jeer dhaaranaya rabu samaawaati walard oo hadduu wax inoo sheego qowluhu sidq warkiisu dhab yahay ayaa 11 jeer dhaartay suu masalada tan u tilmaamo suuradda aynu wada akhrino waashamsi waduxaaha waalqamari idaa talaaha waalnahaari idaa jallaaha walleyli idaa yaghshaaha waalsamaa'i wamaa banaaha waalardi wamaa taxaaha wanafsin wamaa sawaaha faalhamaha fujuuraha wa taqwaaha intaas baa ilaahay kusoo dhaartay ay mufasiriinta badh waxay tilmaamayaan waawiyada meesha ku jiro dham inay waawulqasam yihiin haddaad doontana waawga labaad mid kasta waawilcatif waad ka dhigi kartaa calaa kullin ilaahay intuu sidaa u dhaartay buu wuxuu tilmaamay qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha waxaa liibaanay baa ilaahay leeyihi subxaana wa tacaala waxaa liibaanay man zakaaha ay man taharaha wa naqaaha wa hadabaha wa aslaxaha waxaa liibaanay baa ilaahay leeyahy qofka naftiisa daahir yeelay wanaajiyey kobciyey islaamnimada ku dhaqay qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasalla waqad khaaba man dasaaha baa ilaahay yihi kii aasay ee xumaha iyo dhaqan xumada ku aasay ee xaqiray naftiisii waayo nafta bini aadamkaah marna way kortaa oo mar kastoo la dhilo ereyga dhilitaankiisa ma taqaanin usha markaad goosato xoolaha intaanaad ku kaxayn waa la dhilaa wixii qodax iyo kurtina laga dhilaa si ay dee neefka wax kaaga yeelin nafta bini aadamkii qodxay iska leeday waxay jeceshay in la ammaano waxay jeceshay mararka qaarkood inay muuqato waxay jeceshay xoola inay hesho waxay jeceshay wax badan waxaasi wuxuu u baahan yahay qofku inuu la tacaalo oo dhilo oo ka fiiqo ilaa ay naf quman ka noqonayso ilaahay sharcigiisa ku qumanaanayso haddii la dhili waayo xumaha kale uga dhacda ilaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo in hum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiila
ina shara adawaabi cinda allahi sumu lbukmu. ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa waxa dhulka kor socdaba waxa u shar badan mushrikiinta, waayo xumahay xagga kale uga dhaceen. arrinkani muhiimadiisu waxay culammadu yidhahdaan waa wadiifatu alambiyaai wa rubcu risaala bay ku tilmaamaan. taskiyadu waa shaqada nebiyada loo soo diray. ilaahay nebiyada waxyaabuhu u soo diray taskiya ka mid ah. sida awgeed ayuu nebi muuse fircoon markuu yimi muxuu ku lahaa, faqul hal laka ilaa an tazakkaa wa ahdiyaka ilaa rabbika fatakhsha. waxa uu ugu yeedhayay fircoon waxay ahayd taskiyat alanfus, naftiisa inuu tahiro oo najaasiye xumo iyo waxa kanuu ka tahiro. waxaana loo tilmaamay waman yaأtihi muؤmina qad camila الصaalixaati faulaa'ika lahum الdarajaat اlculaa jannaatu cadnin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika jazaau man tazakaa baa ilaahay. sidaa awgeed ayuha alaxiba, culimmadu waxay dhahan waa rubci risaala. nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladii loo soo dhiibay 4 meelood marka loo qaybiyo meelba ah bay leeyihin mas'alada tan. oo ilaahay markuu u manno sheeganayo muslimiinta 3 aayadood ee loogu manno sheeganayo iyo aayadda nebi ibraahim uu ku ducaynayo, 4 aayadood ee qur-aankii waxay ku soo arooreen mas'alada tani inay tahay rubcu risaala. kama arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikma wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim. ambiyada 4 shay baa loo soo diraa. ka koowaad waxa weeyaan talaawatu lkitaab, qur-aanka inuu dadka ku dul akriyo. qur-aanka inuu ku dul akriya macnaheedu waa maxay? waa inuu xujada ku oogo. dadka badh baa ilaahay ogiyey aan rabbiba rumayn doonin, fii cilmi lgayb ilaahay ogiyey, biikhtiyaarihim ku diiday inay ilaahay rumeeyaan. oo hadday sidaaba ahaayeen maxay risaalada kuwan u tiraysaa? waxay u tiraysaa aakhire inaanu cudurdaar helin, in xujada lagu oogo. marka ambiyadu kow waxay u yimaadaan dadka inay xujada ku ogaan, macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun. ilahay wuxuu leeyay cidna ma cadaabna xataa nabcatha rasuul, inaanu soo dirra mooyaane. waxaa loo soo dirayna lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul. marka shaqada koowaad ee ambiyadu ay qabtaan waxa weeyaan dadka inay xujada ku dul ogaan. xujaduna qur-aankay ku dhantay. qofku dadka badh baa is idhahdaa dadka haddaad rabta inaad hanuunse falsafad u akriyo, saynisu sheegiyo kanu sheeg waxba kama jira. waxaa ilaahay xujadiisu kitaabkiisa ku taalla. hadday daliil caqliya tahay, mid maangala tahay, mid cilmiya tahay, mid kasta tahay, qur-aankaa sheegaya. xujo waxa ugu filan qofka markaa qur-aanka in la fahamsiiyo, qur-aanka inuu fahmo ayaa xujo ugu filan. mid cad iyo mid madow iyo mid brofessor iyo mid miskiina iyo mid caalima iyo mid reer baadiya waa isku mid. cinda allahi halkay ku jirtaa. marka shayga koowaada rususha loo soo diray waa yatluu calaykum aayaatina, inuu idinku dul akriyo aayaadka yaga oo inuu xujada dhammaantiin idinku oogo. dadku markaa 2 fariiq bay noqon doonaan, kuwa ilaahay raacay iyo kuwa ilaahay diiday. kuwa ilaahay diiday iyaga xujadaasaa lagu wadayaa. kuwa ilaahay raacay markaasee aqbalay qadiya thaaniya ugu muhiimsane markaa uu u baahan yahay waa maxay? waa wayuzakiikum wayuzakiihim. waa taskiya, waa masalada aynu ka warramayno. waa in qofkan la tahiro oo xumaha laga tahiro. oo xumaha laga tahiraya waxa ugu horeeya ilaahay keyrkiioo la caabudo, ilaahay keyrkiioo la baryo, ilaahay keyrkiioo la isu dhuldhigo. ra'su lkhatii'a waa kufr, dabeetana macaasida waa weyn, kadibna dhaqan xumada isaga iyo bini aadamka dhex mari karta, kadibna waxa allaaliya wixii qofka bini aadamka naqiisa ku ah, wixii xumo ku ah oo dhan waa taskiya. mas'alada 4 iyo 3 markaa iyagu waa tacliimu alkitaabi walxikma. qofka in la baro aqoon
in la baro ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. iyagu waa cilmi. in badan oo dhallinyarada ka midi waxaad moodaa in ahmiyadda la saaro tacliim alkitaabi waalxikma. haddaad aqoon barato asaanada rabbaysnayn, jafaafnimo iyo dhaqan xumo kaa badanaysa, iyo dadka inaad diintaba kasii fogeysa inaad ugu yeedho daaya. marka asalka waxaa ah caamo iyo culamada dadku inay musakiin noqdaan. dadkao dhan waxaa saaran laba ku ah bacda alxuja, waa in dadka la tahiro, naftooda iyo quluubtooda la tahiro, ay noqdaan dad mutawaadiciina oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ku beeran tahay, oo aan khalqiga iska weyneyneynin, oo aan adduun jacayl u noolayn, oo aakhiro u muuqato, oo wixii laga rabay oo dhami. intaa kadib baa waxaa lagu tilmaamay culammadu yidhaha wayucallimuhum alkitaaba waalxikma, in la baro xikmada oo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ah iyo kitaabka alle subxaanahu wa tacaala. idan waxay dhahdaan afartii shay ee risaaladu ka koobnayd ee ilaahay ugu manno sheegtay, manno sheegadku yacni ugu gallad sheegtay, ilaahay nicmadu dadka siiyey uu ku tilmaamay rubuceed, afarta mid ahaani waa maxay? waa masalati taskiya. casriyada dambe waxaa yar dad murabbiina oo dadka taskiyeeyaa yar. macluumaadku waa badan yihin, macluumaadku waa badan yihin. cilmu suluuk dhigistiisa iyo barashadiisa iyo ku dhaqankiisa waqtiyada dambe aada buu u yari. waxaa laga yaabaa culumta kale, fiqi matalan markaad barato, nacam wixii wax kaaga asaxayeen ama kaaga burayeen maad baranaysaa, wixii xalaal iyo xaaraan baad kala baranaysaa. laakiin matalan salaadu waxaana way ku asaxdaa, waxaana way ku burtaa, laakiin inay dhaqankaaga doorisaa waa masalo ka baxsan burinta iyo asaxinta, waa masalo ka baxsan. inaad ku khushuucdaa waa masalo ka baxsan. inay salaadii rabbi rabay noqoto ee maqsuudkeedu ahaa tanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkar inay gaadhaan waa masalo u baahan rabaayad kale. walidaalik culammadii waaweyneeda hore markay wax ka baranayaan umay iman jirin inay macluumaad ka qaataane waxa uga muhiimsanaa samtiga iyo dhaqanka iyo zuhdiga iyo suluuka inay ka bartaan baa ka muhiimsanayd inay ka qaataan macluumaad iyo information. yani jaamacadaha la tago information baa laga soo hela, waa macluuma, laakiin transformation lagama helo, isbeddel ma sameeyaan. qofkana waxaa ka muhiimsan inuu macluumo helo, inuu isbeddel samayn karo. macluumadu markaasay wax taraysaa, markay macluumo kasta dhaqan isu beddelayso ayay qiimo leedahay. laakiin hadday noqoto waxaad madaxa ku gurayso un, laakiin hebel un aad iska tahay, haddaad 10 kitaab dhigatay iyo haddaad 1 kitaab dhigataba haddaad hebel tahay oon waxba iska kaa gadiinaynin, noloshaaduna isbeddel samaynaynin, macluumaadku xujay kugu yihiin, wax tarba kuma aha, waa xujatun calayk. aakhira aday dhib kugu haysaa dheeraadka inaad baratay ee dhaqanka loo bedeli waayo. sidaa ogeed baa ducadii nebi maxamed waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam, xadiidkii saxiix muslim ku yaalay jus ka midaynu soo qaadiye, allahuma aati nafsii taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaha. nebi maxamed baa ilaahay bariyo muxuu weydiisanayaa, allahuma aati nafsii taqwaaha, ilow naftayda taqwadeeda iyo dhowrsanideeda iyo alla kacabsigeeda sii. ilow adaan ku weydiisanaynaa inaad jidkaana marisa buu leeyahy. zakiha, ilow tahir oo khayrka ku barbaariyo, ku koriyo, ku kobci. anta khayru man zakaaha, cid daahir yeeshoo nadiifiso oo kobciso oo korisa, ilow adaa u khayr badan. anta waliyuha wa mawlaaha. idan ayuha alaxiba, matlabkan ah in bini aadamku ama qofka muslimka ay siiba uu ku dadaalo diintiisu siday dhaqan isugu bedeli lahayd, aanay u noqon lahayn aqoon madaxa kaga jirta ee aqoon qalbiga ku jirta ay u noqon lahayd. inay caqliga gasho iyo inay qalbiga gashaa waa kala laba. qalbiga hadday gasho waxbay bedeshaa, caqligase hadday gasho
dee waa macluumaatun waa waxaad ogaatay. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inuu isagu bixiyo mas'aladatan dariiq kaloo laga raadiya inaanu jirin. walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuh maa zakaa minkum min axadin abada walakina allaha yuzaki man yashaa. ilahay wuxuu leeyahy haddii lala yahay ilaahay dheeraadkiisa iyo naxariistiisa qofba idinkama daahireen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala, laakiin rabbaa daahiriyo taskiyeeya oo zakaa u sameeya ciddii uu isagu doono. sidaa awgeed ayuha alaxiba ayaynu waxaynu tilmaamnay qur-aanka aayaadka soo degay ee ka warramaya shaqadanka ambiyadu afartaa shay inay yihiin kuwa ugu muhiimsanna ay ka mid tahay. taskiyadu markay xad gaadho way isku macnay noqdaan, xataa taqwada la tilmaamo oo ilaahay waa ka qur-aanka ku leh wasayujannabuha alatqa alladii yu'tii maalahu yatazakaa. waxaa naartaa wax gubta laga fogeynaya maxay? alatqa, kuwa ilaahay u cabsi badan leh, cabsida ku sugan waa kuwee? waa kuwa xoolahooda bixinaya iyagoo taskiyatu nafsi raadinaya, tathiiru nafs. haddaynu intaa kusoo dhaafno taskiyadii anwaacdeeda iyo ahmiyaddeeda iyo inay rubcu risaala tahay iyo rususha shaqadooda inay tahay, wadiifatu lambiyaa inay tahay, waxaynu ku gebagabaynaynaa dariiqa waxaan loo maraana ma aha dariiq ka baxsan waxaa nusuustu sheegayso. yacni dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mid aan ahayn dadka barh baa tijaabiya, laakiin qiimo badan ma sameynayso. waa laga yaabaa techniqueska farsamooyinka qaarkood qad tusaaciduk walaa tusakiik, inay markaad waxaan samaynayso wax ku tarto, laakiin taskiye ma helaysid. maadaama ilaahay leeya walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuhu maa zakaa minkum min axadin abada walakina allaha yuzaki man yashaa wallahu samiicun caliim. waxaan leenahay taskiyadu waxay ka bilaabantaa tawxiidka, oo ciddii tawxiid weyda shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah cidda weydaa ma taskiyoobayso. taskiyadaynu rabnay shareecadu ka warramayso kow waxaa asal waa tawxiidka inaad xaqiijiso, oo tawxiidka laftiisa ayaa badhna yahay macluumaad madaxa gala, badhna uu yahay tawxiid camaliya. tawxiidka macluumaadka madaxa gala waa inaad garato ilaahay inuu keli yahay, asmaa wa sifaat fiican leeyahay, isagu dunida tan maamulo, keligii la baryo, aakhiro inay jirto, janno iyo naar inay jiraan, rasul ilaahay inuu soo diray, kutub inay jirto. waa masaa'il cilmiya waa inaad garataa. laakiin tawxiidku goormuu macno samaynaya? markay waxaasi dhaqankaaga ka muuqdaan. muraaqabada tani ilaahay markaad rumaysantay in alla ku arkayo, asmaadii aanay ahayn asmaa kalaamiyo cilmulkalaamku si uga warramayo kalunaad uga maranto oo muran u dhalisa, laakiin ay noqoto asmaa iyo sifaat noloshaada macno ku beera. ilaahay waa caliim markaad barato inuu caliimiyey, inuu khabiiriyey, waxay keensanaysaa inaad yaqiinsato wixiisu inay sax yihiin, ku kalsoonaatid, shaki ku soo gelin. markaad barato ilaahay inuu xaafid yahay, raqiibiyey, waxaad ku kalsoonanaysaa inaad tala saarato isaga. markaad rumaysato inuu qawiyun casiiz yahay, waxaad rumaysanaanaysaa isagu inaad ku tiirsato, makhluuqu inaanay waxba ahayn. idan tawxiidkii aad rumaysnayd baa wuxuu isu bedelayaa sulugaaga inuu wax ka bedelo, dhaqan inuu noqdo, inaanu noqonin macluumaad murana unaad muctasila kan tiri iyo jahmiya kan tiri aanad ku murminune, inuu isu bedelo wax dhaqankaaga wax ka bedeli kara oo iimaan kordhin kara. markaasuu noqonaya tawxiidkaagii tawxiid midhihii la rabay dhalinayay. waxa keena baynu leenahay taskiyada tani waa cibaadaadka dhabta ah, waa cibaadaadka sidoodii loola yimaado.
إلهي مقاصد عبادات كم حكوت المامية هو مقاصد ودوا إن هذا أجر كهشة وكم إن الذمة هذا برية شان آخر الوضوء أبصر مثلا سلام تكتي هدي واحد مبطلات أنا تلاقي من السيد اللي يقولوا تكون تسجل تكتي وإجزاء شيء ينفق هذا يكون عضو والله يبقى آخرنا الوضوء أبصر إن سلام دي ما تكمل لكن واحد كلا صورة قال هنا أشر بني هيرنا صورة قال كويل لها عشورها بيه لي أنا ما تصعها ما حاجة وهو صيصان تمر هدي 10% عدي هلا يسوي ل 0% عشان أنا واسك صورة قال ما 1% ما 3% إذا صلاة دين ودت تكني قفنا إنه 80% 70% 90% هلا كان ولا شيء سوى حبيك بدليسة والله هو سلوكي سيدنا كيسي بدليسة تسكيده إنه شيء إنه يدون نقانيسا قفنا وحلقية ما هنا يكون كذا عضايا وصلاة دي أنا آخرا ما تكنينا الله قصنين لكن إننا نلشي سرات كي الله بعنا كل هاي that's why إنه أركينه تتصفلوا الكنا كتيرة توقنا تتصفلوا الكتيرة خيامة بدن تتصفلوا الكتيرة بين شيء تتصفلوا الكتيرة وعبادة يوحي للربيع يعني مدردالين أنا تتصفلوا الكنا كتيرة وحي بلشة كودي بتيه وحي دولة كودي بتيه وحي حاجة لا يقدر يبغى تسمارسه تتصفلوا الكنا كتيرة وهذا ندت كبوفتي ودول كبوفتي وما نويد تتصفلوا الكنا كتيرة والرب الشيء ويده وحسوي دارستو خياميسي سفلوا الكنا كتيرة وحرد عن وحويا تسكية النفس بمقام معلومات كأتقرن إنسان ومعرفة ديني سمي بدلنتي للربي ما ينقولين نلاشى وحكي بدله سأوجد قف كم بني آدم كالليل هذا وح ملك هجن معها ووح أمر ربوبة أو كرة أو قبعة أو حاجة ملك أو صعدة إلى حد إيجابي كران دك عادي ما ها أنبياء يا الرسول كما ورميه قال النبي لها هذا إلهي كل أرتان إلهي دارت دو فلنيا والله ساسي نقول سهدو إلى هذا إلهي وكذا يسجد وكل أرتين نقطة وما هي الله كعب سي يم هي سلوك سي الدقة كيسي بحد كان جالسي بني آدم كقارن حاجة كلا يصعد آدم لماذا ضوى كنعان حيوان كاين نقضان بل هو يسير بل هم ضل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا كإلهي إلهي وشر الدواب إلهي وحدك قرص عليك وشر بدل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم كإلهي حنوعسي ثم رددناه أسفل سافلين أسفل السافلين كم معنوي كمادي هيدا بي تتكبر بقى أسفل السافلين كم معنوي قاو النقضة أنت إلهي سفي عنه أبو ري لكن نفتي سمرك الربوب ويدين نقضي بحر بني آدم كعونه أضافي حيوان ماذا درجة دي وإلهي وقرآن قلت المامية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم ضلوا السبيل بل هم ضل إلهي وحكوت المام يقوى جهنم قوة قلية الجن ينسك كمدي وقال ما لها بني آدم كو إنفورميشن وركا كو هلوردن أي حرنتي وحي خير ما يشكو قليلا وحرنتي قلبي يسو ما فهمه إيش يسو وناقا ما أركته دكتيسو خير كما مقاشو انت بولي لكن شربك شقينيها انت بولي عقلي قلبي بولي شربك فوقيه دقيه ان بولي شربك فوقيه كواس إلهي وحكوت المامي أولئك كالأنعام بل هم ضلوا السبيل بل هم ضل كواس هو حولها نواكلي تنبا إلهي إليه سبحانه وتعالى وعنفلي وقتي سلاد وقعد لكن كلمة ديدوها كلمة سكبكوبة
waxay ku kooban tahay bini aadamku xagga sarena wuu u kori karaa oo zakaadkaynu sheegaynay khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakiihim tutahiruhum min daa'i lbukli washuh iyo wixii la nooca xumaay ka tahiraysa wa tuzakiihim kor bay yeelaysaa tuslixuhum way hagaajinaysaa dad acmaashoodoo dhamme markaa ay taskiya u yihiin oo ay nadiifinayso iyo dad acmaashoodoo dhami tadsiya ay u yihiin ay aasayso xabaalayso qofka muslimkaana waxaynu leenahay bacda shahaada waxa laga rabaa waa inuu naftiisa rabeeyo inuu naftan rabeeyaana waqtay qaadataa bini aadamku maaha wax inta wax loo sheego dabeetana saasuu iska yeela xataa maaha bini aadamku wax caqliga si toosa u adeegsada dadka baad maqlaysa kule caqlaan leena su-aal quraan ku weydiiyo bini aadamka dunida ku nool wax sigaarku uu fiican leeyahay inaad maqashay diin kama warramayo basharka caadiga iyo طibkiga aqoonta iyo waxa bini aadamku uu leeyahay wax la sigaar baa fiican inaad maqashay kacbayana ku dhaho wuxuu ka odhanaya wuu xun yihi haddana caqligaaga adigu meel waalantay markaa maxaad u cabaysaa haddaad ogtay inuu xun yahay asaad caqli qabto maxaad u cabaysaa ma waalid caqligaaga waad qabtaa yacni waanu raboobin go-aan qaadashadiisii baa xumaatay siduu naftan u rabayn lah marka macluumo kastoo aada haysataa macnaheedu maaha inay dhaqankaaga ka muuqanayso inaad macluumada garanaysaa shayga inaad garanaysa macnaheedu ma aha inay dhaqankaaga ka mid noqonayso dhaqankaagu wuxuu u baahan yahay inaad israbayso wuxuu u baahan yahay dadka khayrka qaba inaad ku xidhanto wuxuu u baahan yahay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad barato wuxuu u baahan yahay siiradii nebi maxamed inaad barato wuxuu u baahan yahay siyaru saalixiina wa taraajum alculamaa maxaa had iyo goor taraajimta culamada loo qoraa waxaa loo qoraa dhaqankoodan in lagu daydo manaaqib alculamaa iyo taraajim alculamaa kutubtan waxaa ka warramaysa waxa loo qoray waxa weeyaan in sabtigoodii la barto hadyigoodiiyo say u dhaqmayaan in la barto si loogu dhaqmo waxaan leenahay markaa tawxiidku taskiyu sameeya cibaadaadku taskiyay samaysaa adkaarta la samaynaya taskiyay sameeyaan waxaan oo dhan waa waxa nafta rabeeya laakiin waa marka aan macluuma ahaan loo qaadanin ee loo qaato dhaqan ahaan la ysku dayo in lagu raboobo naftu marka hore weecweecadkeedu wuu tiro badanayaa laakiin waxay u baahan tahay waqti in lala daba taagnaado culamada psychologiga waxay dhahdaan wax kastoo aada muddo musaawalis muddo aada wadaaba marka dambe caadaadku ku biira caadadaada caadiga aanad dareen caadaadkaaga ma dareentid masalan iminka inay casarkii baxdaan oo shaah soo cabaan caada idiin noqotay kama fekertaan horta maxay ka faa'iideen inay maqaaxida tagno koob shaah ka dalbano qofna ma xisaabiyo ma isweydiisaan oo maqaaxida inta la tago koobka shaah mad gurigaaga ku cabtay koob shaah la duuyi guryihiinii baa shaah yaalin waa baxaysaa caada idinka noqotay inaad casarkii intaad xidhxidhato maqaaxyalkaasa tagto koob shaah ka cabto adigoo aan fakerin baad samaynaysaa dhaqamadoo dhan baa caado loo bedeli karaa markaa dhaqan kastoo aad rabto haddaad muddo nafta ku rabayso marka dambe caadu noqonaya automatically aada u samayso haddaan ka fakerin aada samayso marka waxaa laga yaabaa carruurta yaryar inaynu dhahno markaad cunada cunayso bismillah leh laakiin adigaaga weyne inaad iska ilowdo mar kasta waayo waan ugu tireen garay laakiin kaa yar haddaad usbuuc ku wado marka dambe dhaqankiisa ku biiraysaa cunno marku kor u qaado oo bismillah bu iska odhanaya marka way ka baxday macluumo oo waxay gaadhay maxay inay caadaadkiisa ku biirto marka waxaynu u baahanay macluumaadkan madaxa ka buuxa iyo wacdigan tirada badan ee laydiin sheegaya habeen iyo maalinba inuu macluumaad aanu noqonin iyo war la ogaadaye inuu dhaqan isu bedelo inuu isu bedelaana wuxuu u baahan yahay nafta inaad muddo ku rabayso intay kala qabsanayso markay la qabsato wax fudud buu iska noqonayaa oo ay si caadiya ugu dhaqanto hadduu tawxiid yahay iyo hadduu cibaado yahay iyo hadduu adkaar yahay iyo hadduu xumo ka dheeraasha yahay waxaasoo dhan waa taskiya dee bal culamadan waxay leenahay war kutubu suluuk
bal dib ha loo akhriyo oo dadka wixii lagu rabayn karo dib ha loogu rabeeyo siiba طulaab alcilmiga sala allahu calaa muxamadi wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi